waxaa baraha bulshada aad looga hadalhayaa wiil ku ooyay xafladii arooskiisa waxay dadku ku doodayaan sababta uu la ilmeeyay iyagoo qaarkood leh wuxuu u ooyay jaceylku uu xaaskiisa u qabo halka qaar kale ay ku macneeyeen inuu arrimo kale u ooyay muuqaal yar oo laga soo duubay xafladda ayaa lagu arkayay wiilka caruuska ah oo ilmeynaya ayna ilinta ka tirtirayso gabadha caruusada ah waxaa dhif iyo naadir ah in la arko nin Soomaali ah oo meel fagaara ah ku ilmeeyo farxad uu dareemayo awgeed waxay dadka Soomaalida ah badankood qabaan in ragga Soomaalidu ay yihiin kuwa calool adag oo dareenkooda qarsada hase yeeshee waxaa taasi beeniyay Sadiiq Cabdinaasir oo dareenkiisa aan qarsan oo xaaskiisa iyo dadkii joogay xafladdu u muujiyay jaceylku uu qabo xaaskiisa dadka baraha bulshada arrintan aad ay ugu hadalhayaan waan arkay qaar baa si xun u turjumay laakiin qof walba bini aadam ah oo qalbi leh maalin ayuu ooyaa waxaan la ooyay farxad darteed sida ay qoyskaygu uga soo qayb galeen xafladda arooskayga iyo inaan hantiyay qofka aan dunida ugu jeclaa ayuu yiri Sadiiq Cabdinaasir oo saxaafadda la hadlay walaalow isma lihi wax weyn oo micno weyn sameynaya buu uga duwan yahay arooskaagu aroosyada kale oo aan ahayn arrinta qabsatay baraha bulshada oo dadkoo dhan ay ku hayaan waxa weeye nin uu jacayl dartiis dadka qaar ba si way uga falcelinayaan laakiin dadka inta xumaanta iyo warxumatashiilka u safratay ma fiirina laakiin dadka badankood ay la yaaban yihiin nin Soomaali ah oo haddana waxa weeye reer mudug ah oo ooyay ama qof uu jecel yahay uu ooyay waa la isdacayday waxa la yiraahdaa reer mudugu waa dad aan calool adag oo jacayl u ilmeeyaan ama aysan ka suuroobin waxataa xaasaskooda aysan ku dhihin waan ku jecelnahay marka dadka sidaas aaminsan fikirka noocaas maxaad oran lahayd والله ولا واحد إلا ضدك واحد هيستان فكرة خلدان قف بلو بلادنا بقلب ولا هي قف البنا معلم بويا أما بحوي فرح له ويا أما مروجو لو أنا وحسدي كلام مروجو دي فرح قف كوح وهنتو كوقرح بدن تاعي نقف مرة فرح سنة هاي هدي ديني الله في السنة دي قف دين تي مروجو دي وحوين لجو ويا مقرح بدن لكن فرحته واحد ديني إن بنان قف كانوا فرح درت الوي كلام قرأته aniga ana waxaan sidii kara waxaan la ooyay wax kala ma ahan markaan arkay mashxarada iyo qiimaha ay dadkayga familka ah iyo asxaabteeda iyo dadkii waxa weeye meeshii aan ku dhiganay arooska quruxda badan ka soo qayb galay say waxay ugu qaban qaabiyeen markaan arkay darteed baa ilmo iga timid inaan hantay qofka aan jeclayn dunida ku lahaa iyo inaan dareemay inaan qofna wax iga hakran sidii aan ku noqon lahaa qoys jira oo jooga hadda dabcan waa aqal gashay himiladaadii waa gaartay sidee dareemaysaa adiga iyo hadda xaaskaagu wallahi alxamdulillah ilaahay baa mahad iskale wax culays iyo wax maaragtay dhiba midna ma dareemino aniga iyo waxa weeye xaaskayga labaduba qof walba oo caqli saliim leh oo waxa weeye caqligiisu ku filan waa dareemi karaa si fiican oo hufan qofku fikir waa dareemi karaa oo intaas waxay ka turjumayso inay xumaanna ka turjumayn marka aad baan farxad u dareeminaa reer mudugana waxaa la yidhahdaa waa dad aad u qalbi adag laakiin anu waxaan soron karaa reer muduga inaysan wax cilada iyo wax ceeba ku lahayn jacaylka ayna yihiin dadka Soomaalida ugu furfuran oo ugu waxa weeye bashaasan ma garata dadka aan dabcan kala soo qayb galin xafladaada iyo farxadaada sida annagoo kale goormaad ugu yeeri doontaa xalwada waxa weeye cidii xalwada la gaarsiin karo meeshan deganay lagu gaarsiin karo waa fiirana qolada ay wareysanayso oo aad baa uga mahadcelinaya ayagana waxaan xalwadooda u siin doonaa cidii u joogta waxay ahayd habeen xasuus ku reebtay dadka ka soo jeeda gobolka mudug oo arrintan siyaabo kala duwan ugu falceliyay qaarkood ayaa waxayba aaminsan yihiin in reer mudug ay yihiin dad aanan lagu aqoonin calool jileec wiilku wuxuu la ooyay jaceyl uu qabo xaaskiisa laakiin waxay ahayd inuu qarsado oo markay isku soo haraan uu iyada kaliya u muujiyo jaceylkiisa reer mudug laguma ogeyn calool jileecaas ayuu yiri Cabdirasaaq Dhilood oo garoowe jooga qaar ayaa aaminsan in tani ay tusaale u noqon karta ragga Soomaaliyeed ee qarsada jaceylka ay xaaskooda u hayaan
waxaan ka aaminsanahay arrintan hadalhaynta badan dhalisay ee Sadiiq Cabdinaasir uu ooyey xilliga aqalgalka inay ku keentay jaceyl uu qabo xaaskiisa, waxayna ahayd dareen geesinimo iyo kalsooni leh oo uu muujiyey noloshiisa cusub, wuxuuna ragga Soomaaliyeed u noqday tusaale, ayuu yiri Cabdirasaaq Axmed Jaamac. عشق ويدين أرس ويوب وعروس عميرا وعليه مساء عشق ويدين عرس ويوب وعروس عميرا وعليه مساء وجعل عبتين العقار ليو عركم وذوك دايب عركم وذوك دايك وعسوسنا وجعل عبتين العقار ليو عركم وذوك دايب عركم وذوك دايك وعسوسنا وهلي النمعة يلتري سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبي جعل عانيو عاشق اللبي أضع وهلي النمعة يلتري سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبي جعل عانيو عاشق اللبير وعذرات قرحون عصب ويوذب ويا عمل سنيو عاقل بادلي وعذرات قرحون عصب ويوذب ويا عمل سنيو عاقل بادلي هذا العابق ليو كيلا لعرو عيدي قديو عيدي قديو أربو بس كل عوي هذا العابق ليو كيلا لعرو عيدي قديو عيدي قديو أربو بس كل عوي هذا عاوهلي نمعة يلتري سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبير جعل عانيو عاشق اللبير هذا عاوهلي نمعة يلتري سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبير جعل عانيو عاشق اللبير هذا عاوهلي نمعو يلتري سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبير جعل عانيو عاشق اللبير ugu horeyn ka waran dareenkaaga haddii aad dib u celiso xusuustaada xilligaas maxay ku saleysneed ee ilintii kusoo dhaaftay aad baa u mahadsantahay Yuusuf Carab, waana kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad igu soo booqatay gurigayga. walaalow ilintaas waxay ahayd ilin ku saleysan ilin farxadeed bay ahayd, ma ahayn ilin la xiriirta murugan iyo wax la mid ah, mana ahayn ilin la xiriirta doqonnimo iyo waxa weeye wax maaragtay aniga xaggayga ka jiray oo dhiba,
marka waxaan dhihi karaa waa ilin ku salaysnayd dareenka farxadda lahaa oo ay ii muujiyeen dadkii kasoo qaybgalay xalfadeeda arooska dadka kasoo shaqeeyey wax anigu aan maaragtay aan kantarooli karay ama aan xadidi karayna ma ahayn waa dareen ay iga keentay xalfadeedii arooska. markii muuqaalkaasi uu ku baahay baraha bulshada soomaalida siyaabo kala duwan ayay u arkeen laba qodob ayaana loo badinayaa. marka ugu horeyso soomaalida waa dhif iyo naadir inay ilin mataqaanaa meel fagaaro ah xaaskooda ama afadooda ay la ilmeeyaan waa dhif iyo naadir. midda labaad xiisaha gaarku yeesho waxay tahay reemuduga aan lagu ogeyn jiljileec markaas ayay falcelintii ugu badneed ay ku baahday. labadiina si toos ayay kuu saameynaysaa, maxay tahay jawaabta aada bixinaysid? jawaabta aan bixinaya waxay tahay inaysan dadku ahaan dad maaragtay u fikray si khaldan ama dad uga falceliya wax walba arkaan si xun ay ka fiiriyaan dhanka wanaagsan mar walba wax fiirinayaan. ilaahay subxaanahu watacaala iyo diintiisa islaamka labaduba waxayna fariyaan wixii wanaagsan in la qaato wixii xunna laga tago. ma dhihi kara anigu dee wax aan diinteeda islaamka ogolayn inay bulshada ceeb la noqdaan waa xoogaaba laga fiican yahay. wixii diinta islaamka ogoshahay qofkan waa inaan la noqdaan wax wanaaga. anugu dareenka aan muujiya ma aha dareen dhib ku keenaya diinteena islaamka ama saameyn ku yeelanaya. marka waxaas dhihi lahaa dadkan sida khaldan uga falcelinaya inay yihiin dad qalbigooda iyo damiirkoodu intuba ay angegeen oosan wax naxariisa ku jirin iyo wax jacayla. marka maxaa ku micneyn kartaa adiga? dareenkaas waxaan ku micneyn karaa dareen farxadeed inuu yahay. dadka sida khaldan uga falcelinayana waxaan ku micneyn karaa inay yihiin dad aada aragtidooda u liidato. marka maxaana la wadaagi kartaa xusuustaada waayeed intii xiriirkan uu soo socday maxaad nooga sheegi kartaa waqtiga uu qaatay inaad xiriirkan soo afmeerta? wallaahi waqti aada badan buu qaatay, muddo 5 sano oo ku dhow weeye. waxaan kaloo oran lahaa dee qofku wuu dareemi karaa qofka markaa meel kale ku kala nooshihiin qofkii makaa tagay makula jooga qofkii qof kalu kaa doortay asagii kalsooni makuu qaba waxyaala badan baa isweydiinaysaa. marka riyadaas aad ku riyoonayso markii aad ku guulaysatid dee wax walba oo markaas kula gudboon ama wax walba oo naftaadu ay sameynayso dee cidna kala tashan maysid. marka telefishinka SBS wuxuu fursad kuu siinayaa inaad hal eray aad ku koobto xiriirkaaga maanta bilowga ah oo runtii maalmihii ugu horeeyey oo ilaahay calaf isugu keendara adigii iyo marwadaada. marka ereygaas aad dhahayso maxaa ka mid a? ereygaan dhahayo wuxuu yahay aan kusoo koobayo in dadku noqdaan dad waxa weeye xagga lamaanahooda u jilicsan rag iyo dumarba. dumarkuna inay u dabacsanaadaan raggooda, ragguna u dabacsanaadaan dumarkooda. weliba maadaama anigu aan nin ahay oo fariinta aan ragga u diriyaa waxay tahay inaysan is oran ninkan waxa weeye naagta u ooyaya ama qofka dumarka u ooyaya ma nin doqonaa, laakiin ay ka fiirshaan dhanka wanaagsan oo ah qofkan wax walba oo farxad ugu muujin kartid lamaanahaaga waa mid saameyn ku yeelan doonta noloshaada dambe. qofkuna sida aad ugu muujiso dareen farxadeed iyo jacayl bulshada dhexdeeda buu asna kugula noolaanaya. marka fariinta aan u dirayo anoo hadalkayga soo gaabinaya waxay tahay inuu qof walba oo waxa weeye dunidan ku nool oo lamaane iyo guur ku haminayo inuu noqdo qof dareenkiisa iyo jacaylkiisa ku muujiya si farxad leh. ugu dambeyn telefishinka SBS wuxuu ku siinayaa fursad ah inaad cid u mahad celiso. arooskaagii yaad uga mahad celinaysaa? arooskayga mahad celintiisa kama wada gaari karo, boqolaal qof dad kor u dhaafaya ka qayb qaatay, laakiin waxaan u mahad celinayaa qof walba oo ka qayb qaatay arooskaygan hadday tahay labadeeda faamilka gabadha iyo faamilkayga labadaba, asxaabteyda oo aana kala reebayn, laakiin dadkii sida khaaska ah arooskayga uga shaqaynayay oo qof walba oo TV-gan daawado uu dareemi karo qaybta uu ka qaatay. waxaan leeyahay mahad celintu qof walba fadhigiisa bay kusoo gaaraysaa. aad baan u mahadsantiin. عشق ويدين أرس ويوب وعروس عميرا وعليه مساء عشق ويدين عرس ويوب وعروس عميرا وعليه مساء
وجعل عبتين العقار ليو عركم مذوك داي عركم مذوك داي كعسون سنات وجعل عبتين العقار ليو عركم مذوك داي عركم مذوك داي كعسون سنات ضاع وهلي النمعة عيلتي سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبي جعل عانيو عاشق اللبي ضاع وهلي النمعة عيلتي سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبي جعل عانيو عاشق اللبير وعذرات قرحون عصب ويوذب ويعمل سنيو عاقل بادلي وعذرات قرحون عصب ويوذب ويعمل سنيو عاقل بادلي هذا العابق ليو كيلا لعرو عيدي قديو عيدي قديو أربو بس كل عوي هذا العابق ليو كيلا لعرو عيدي قديو عيدي قديو أربو بس كل عوي ضاع وهلي نمعة عيلتي سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبير جعل عانيو عاشق اللبير ضاع وهلي نمعة عيلتي سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبير جعل عانيو عاشق اللبير ضاع وهلي نمعو عيلتي سعيد عاويو جعل عانيو عاشق اللبير جعل عانيو عاشق اللبير